السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا ومركلة مقال عصب رمضان مبارك ميلو البجوتان ويوينكيغو حيران قاصة. سو دوادا رمانتينا maanta waxaan ka hadli doonaa caruurta yaryar oo jira 8 bilood ilaa iyo 3 sano inta u dhaxayso cuntooyinka la sii karo qado quraac casho 3 waqti oo isku xigo maadaama aynu ku jirno Ramadaan. waxyaabaha koowaad aan u baahanahay waxaa kamid ah marka hore moos ayaan u baahanahay, marka xigtana waxaan u baahanahay sisin, marka saddexaadna waxaan u baahanahay yogurt. saddexdaas waxyaabood waxaan ka sameyn doonaa quraac caafimaad leh ilmahaagana in badan ku soo kordhi doono miisaan dabiici ah si qurxoon ugu kori doono. haddii aad tahay marka hooyo u baahan in xeeladaha cuntada caruurta ay barato ku soo dhawow channelkan si waxyaabo badan oo afkaar ah aad halkan uga qaadatid. cashirkeena maanta waxaan rajeynayaa hooyooyinka igu xiran oo haysta caruurta yaryar inay ka faa'iideystaan. ugu horeyntii waxaad soo qaadanaydaa mooska waa ridqeeda hal xabo oo moos ah. waxaa kale aad u baahan tahay mooska markaad ridqeed fargeeta ayaad ku ridqeysaa, yacni ku jajabinaya ama qaado. kadibna waxaad u baahan tahay hal qaado oo sisin powder ah aad soo shiiday. sisinta cad nadiifi ayadoo diyaar ah ayaad sameysan kartaa. supermarketyadana waad ka heli kartaa, inkastay aad u fiican tahay waxyaabaha organiga ah adiga inaad samaysatid oo gurigaaga aad ku sameydid. hal qaado oo sisin ah ayaa waxaa ku darsanaydaa mooskii halka xaba ahaa oo baaquliga kuugu jiray. waxaa kale aad u baahan tahay 2 qaado oo ah yogurtka waa full cream ama hadii kaleeto mid u dhameystiran dufankiisa inuu noqdo caano, yacni laga bixin waxyaabaha faatka ah. waa in laga sameeyaa yogurtka, qaasatan waa inuu noqdaa yogurtka caruurta u fiican oo sokorta aan lahayn oo balaynka ah. inta 3 shay ayaad isku ridqeedaa oo si fiican aad isku dhex gelinaydaa ilaa tastigooda oo maajgareysmo. intaas kadib waxaad sameynaydaa cunugaaga subaxii hore ayaad siinay quraac ayaad uga dhiganaysaa. maasha Allah wax laga qaban kara malaha. caruurtaasna wax badan oo waxaad ka arki doontaa hadduu rabbi idmo isbedel qurux badan ah. mar walba hooyooyinka ay sameeyaan cuntooyin kala gedisan ilmaha waxaa laga yaabaa in caqabado ay kala kulmaan, laakiin taas ha fiirinin. waxyaabaha aad sameyneydid waxaa ku darsataa in ay noqdaan waxyaabo si dabiici ah aad ilmahaaga ugu sameydid, ay noqdaan waxyaabo dabiici ah, aysan noqon waxyaabo kiimikaal ah ama cuntooyinka diyaarsan oo kale aysan noqon oo supermarketyada laga soo iibiyo. markasto ilmaha si cuntadan waxaad arki doontaa cunugaaga quruxdiisa sida uu kugu koray adiga dhashay ayaa u beegi doono insha Allah. fitamiinaadka cunugaaga uu u baahan yahay waxaad ka heli kartaa cuntooyinka qaabkan ah ugu sameeyay. runta markaan kuu sheego hooyo markaad tahay waa in aad dhexda xiratid, waa in aad ogaatid cunugaaga inuu u baahan yahay cuntooyin isku dheelitiran, noloshiisa kaafiyeelo, qurux ka dhigo, koriimadiisa dhinac walbo cunugaas yacni koriimo macquul ah uga noqdo. hooyooyinka Ramadaan ayaa lagu jiraa, waxaan arkay hooyooyin badan oo markasta yiraahdo cunto fiican cunugeyga uma sameeyo, habeenkii kaliya ayaan siiyaa, yacni cuntada dadka aan siiyo ayaana la siiyaa. taas waxaan u fahmay in hooyooyinka inta ugu badan ay sameeyaan mas'aladaas ama hadii kale mar walba sidaas ay ku dhaqmaan ilmahoodana markasto ay yacni jaanis aysan u helin koriimo qurux badan ay ku sii karaan. ilmaha ma fiirinaysid Ramadaan waaye iyo Ramadaan ma aha. wixii adiga waajibaad laga rabo adiga ku taalaa. jadwal u sameyso soonkaaga, cibaadadaada, dhammaan waxyaabahaas. laakiin cunugan maskiinka ah koriimadiisa waxyaabaha ka qayb qaadanayo jiiraha ka gelin oo ha ka dhigin mid aan u baahnayn juhdi badan. wuxuu u baahan yahay 3 waqti iyo waxyaabo kale oo dheeraad ah oo barqadii iyo galabka casriye inuu ka helo si cunugan uu kugu noqdo cunug maasha Allah dhan walba miisaankiisa uusan iska dhimin, qurux miiran ah. hooyo fikirayso ama hooyo wax baratay ama hooyo juhdi badan rabto in ay bixiso iyo hooyo markasto u baahan waxyaabaha ka maqan inay kororsato ayaana taas ka soo bixi karto. saali ajligeeda hooyooyinka marka halkaan waa waxyaabaha badanaa aan ugu soo gudbiyo in hooyooyinka ay noqdaan hooyo tusaale ah oo yacni lagu daysan karo.
يعني waxyaabo badan oo waxaa jiraan ana hadda cashiro kooban aan isoo geli karaa laakiin badanaa cashirada aan isoo geliyo waxaan isoo dabaraashaa waxyaabo niyad dhis ah adinka caqligiina iyo yani waxyaabo kasta aad sameynaydiin oo afkaartiina ah juhdigiina dhammaan fikrado ayaa halkaan iigu siiyaa si hooyadii ay u noqoto hooyo dhan walba ka dhisan dhameystiran caruurteedana qaab qurux badan ay ugu koraan waxaan rajeynayaa in cashirkan aad ka bogatay waxaan guda geli doonaa cashirka labaad oo ah qadadan ayadana waxaan rajeynayaa hooyooyin badan inay ka faa'iideystaan sida ay uga faa'iideysteen quraacda si la mid ah waxyaabo walba waxba yani wax ayaa ka horeeyo step ayaan iigu soo sameeyay cashirkan maanta ayuu kownii yahay يعني أول مرمر أنيسو قلتلي قضاء قراء عشو لكن إن شاء الله وحن رجينا إن أنيسو دائمو وحيابها عرورتا أباهيهين كلو كورينايو وقت بدن أن كاغا بحينين قضاء وغهرين توحا أباهان تهاي سبق أما سليد سيتون أما سليد معصر سيد أحداث متكاهيلي كرتيد كسا ميسو يعني waxaa u baahan tahay hal qaado oo waxaas ah oo saliidahaas ah waxa kale ah u baahan tahay kamoonka waxa la yiraahdaa midkaan dhoodhooban oo xabaaji dhoodhoobka u eg laakiin uu ka yara waaweyn yahay asagoo la qalajiyay ayaa jira oo cagaar ah iyo asagoo la qalajiyay markii la qalajiyay marka ilmaha wax badan ayuu u taraa waxa kale aad u baahan tahay baradho jeex baradho ah ilmaha haday koox ay yihiin oo kale laba xabo hal xabo ka dhigo iyo bocor guduudka ana wax kasta qiyaasta hal cunug bes ayaan ugu siinayaa inta kale waa siyaadsan kartiin bocor guduudka waxaad ka dhigataa asagana xoogaa yar oo qiyaas ah ka dhigo waxa kale aad u baahan tahay waxay tahay waa malaayga asagana wax badan oo faa'iido ah ay caruurta u taraa maadaama uu ilmaha kula korinayo waxyaabo badan oo inta aan ku soo koobi karin ayaa laga helaa marka saddexda shay ee kamoonkaas intaas ay ka kooban tahay qadada aad u sameynaysid caruurtaada si ilmihii ay u noqdaan ilmo maskaxiyan iyo laf ahaan iyo caafimaad ahaan jirka ka nool maskaxdina ka nool cunuga haduu maskaxdi bas yani uu ka nool yahay laakiin jirkiisa aad basaas badan ay uga muuqato dhibaato weyn waaye hooyada dhibaato soo wajahaysa ayaan ku imaan karta hooyada xitaa marka waxyaabaha aad u baahan tahay waa in aad uga fiirsatid gabar yahay maadaama aad ku jirtid waqti ilmo kooris ah mar walba waxaa kula gudboon in aad ka fikirtid cunugaaga waxyaabaha aad u gelin waxyaabaha aad siineedid cunugaaga waa muhiim inaad ogaatid inay yihiin waxyaabo u qalmo noloshiisa waxyaabo kori karo waxyaabo caqli ahaan xitaa ka saacidi karo waa in aad ogtahay markasta hooyadu ay sameeydo cuntooyin caafimaadka kor u qaadayo waa cunugaaga mar walba waa cunugaaga markasta caafimaadkiisa in uu yani caafimaad aad u badan oo noqdo caafimaadkiisa difaaciisana oo aad u koro markasta cuntooyinka caafimaadka leh qudaarta kalluunka waxyaabahaas waa waxyaabaha sirta cuntada caruurta ah markastana ilmaha kula kori karo waana waxyaabo simbal ah qarash badanna aan kaaga baahnayn guri kastana inta ilaahay uu ugu talagalay hadii ilaahay yani uu awoodaas uu ku siiyay aad ka sameey kartid oo yani qof qarash ahaan uu awoodo aad tahay hadii aad tahay hooyooyinka iska tabarta yarna qudaarto kale ayaad isticmaali kartaa kalluunka xitaa يعني aad qaali uma aha waxyaabo yani waxa ku jiro aad u fiican ilmaha ugu dadaala waxaan guda galeynaa qaybtii saddexaad oo ah cashadan gabi ahaanba wax yar oo simple ah ay ka kooban tahay laakiin cunugaaga habeenkii dhowr mar mirta ma u soo kacaa habeenkii uu ka jiifala yahay gidgidoon badan ma uu leeyahay hurdadiisa ma ay yar tahay oo waqti dambe ma uu jiiftaa haduu jiiftana ma yahay mid dhowr mar habeenkii u soo kaco jawaabtaada haday tahay soo dhawow adiga ayaan ku baahanahay ugu horeyntii waxaad u baahan tahay waa bataati macaanka waxyaabo badan
oo inta aan kusoo koobi karin ayaa ku jiro. Caruurtana aad buu uga saacidaa koriimadooda, dhinac walbana wuu ka saacidaa, borotiin badanna wuu ku jiraa oo dabiici ah, sokor dabiici ah ayuu leeyahay oo cunuga tasti ahaan xitaa uu ku soco karo. Ilmaha mar walba carabkooda waxyaabaha macaan oo kale markaad siidid aad bay uga helaan oo aad bay u jecel yihiin in ay cunaan. Waxa kale aad u baahan tahay oo shayga labaad uu yahay bocor cadaha. Bocor cadaha asagana aad u weyn wuxuu ugu fiican yahay ilmaha iyo dhammaan dadka hurdo la'aanta hayso iyo dadka neerbaha qabo ama madax xanuunka oo kaleeto kusoo laalaabto aad buu ugu fiican yahay. Waxyaabo badan oo waxaa jira hormoonaad ah uu soxo bocor cadaha iyo bataatiga markii la isku daro aadna ay uga caawiyaan caruurta in ay noqdaan ilmo si qurux badan u seexdo, ilmo si qurux badan u soo kaco waqtiga loogu talagalay, hurdadoodana ka dhigo hurdo naacim ah oo aad u weyn maasha Allah u ah. Ilmaha marka ugu horeyntii waa in aad ogaa kartid waxyaabaha ka saacidi karo lafahooda markay korayaan, waxyaabaha ka saacidi karo markii yacni miisaan la rabo in lagu siyaadiyo, waxyaabaha ka saacidi karo markii hurdo la rabo in cunuga uu hurdo. waxaasoo dhan cuntooyinka laga helaa, laakiin ma ogidin adinka anaana nii sheegayo insha Allah markasto waxyaabaha halkan igu soo gudbiyo waa waxyaabo aan ogahay waxtar in ay leeyihiin. waxaad sameynaysaa marka bocor guduud yacni afwan bocor cadaha ayaa waxaad sameynay waad soo dhaqaysaa, waad soo nadiifinay, waadna soo jarjareedaa, kadibna bataati macaankii ayaa qolofka ama diirka kore aad ka soo fiiqay, asagana waad soo jarjareedaa. dabka ayaad biyo la saaree, biyihii dabka meel hoose ayaa u geynay, markuu bislaado ayaa waxaad sameynay biyo yar ama qoyaan yar asagoo leh ayaa ka baxsanaysaa dabka. baaquli ayaad ku shubanay, waaridqeeda fargeeta u qaadanaysa ama qaado ama blenderka ku shiido, inkasta oo dhadhan ahaan markii oo fargeetadoo kale lagu jajabiyo maasha Allah tasti wanaagsan cuntada ay leedahay ee ka dhadhan wanaagsan tahay markii la shiido. adiga nooca doontid buu isticmaal, haddaad doontid fargeeto ku jajabi, haddaad doontid qaado, haddaad doontidna u shiid. laakiin mar walba waxaa isku daydaa in aad sameedid in sidaas inta u ridiqdid cunugaaga